waxaan ku cadeynayna inaan beesha ayuu shiray qaban qaabiye arrinkaas kaga yiman ergadana aan ku guud ee beelweynta garxajis afkeygana aan lagu hadli karin ergada baxdayna aan ku jirin ayaan halka ka cadeynayna xukuumaddu xabad joojin bay ku baaqday laas caalada ciidankii u dhex jooga laba isqabanaya ma aha waxaanu leenahay ciidanku xiriyooga ku noqdeen go'aamadii beelweynta garxajis soo saareen waan soo dhaweynayaa annaguna haddaan beesha ayuub nahay cid nagu matashaa haba yaraatee ma jirto nabadgelyaad ku baaqaysaan guryahoodiina waa dhex fadhidaan isma qabanaysa taas waa laydinku gefay waa gef baa idinku dhacay dhimashaa idinku dhacday waxaa waan idinka taxsiinan war dadka waxaan qaban yahay in loola tegin nuux taano ka soo saar ciidanka meesha boqorka guud ee beelaha ayuub boqor ibraahim boqor cali halkan maanta waxaan uga sheegaynaa shacabweynaha somalilan maalmahanba social mediaha waxaa dhex socday in madax dhaqameed ay u anbabaxayaan gobolka sool ee laascalood runtii arrintaasi arrin madax dhaqameed iskaga yimid talada sool lagu gorfeeyey lagu qaadaa dhigay layskaga yimid guddi tusmayso lagu saaray arrintaa midna may ahayn arrin waxay ahayd xukuumaddu dibadda ka riixayso oo madax dhaqameed suuqa laga soo horriyey oo xukuumaddu dabada ka riixayso in hawshaa loo diray runtii taasina waxaanu xaqbalayna ma aha beesha ayuubna xubin ku matasha ama afka ayuub ku hadli kartaana ma jirto ergadana kaga jirtaa ma jirto halkan maanta waxaanu ka caddaynaynaa inaan beesha ayuub aanay arrinkaas kaga yiman ergadana aanay ku jirin xubinna aanay ku lahayn afkeygana aan lagu hadli karin ergada baxdayna aanan ku jirin ayaan halka ka cadeynna waxa kale oo ku daraya xukuumaddu golo wasiira waa ti dirtay arrinka waa kuwii ku soo fashilmay waa kuwii waxba labada soo dabaali waayey tii oo kale ayay maanta xukuumaddu ku wada arrinta laas caalood arrin si fudud lagu geli kara maahee waa arrin u baahan in si degan oo dadkaa la bogsiiyo dadkaasi maanta waxay tabanayaan runtii ciidanka waxaan ku baaqayaa xabad joojin baan xukuumaddu xabad joojin bay ku baaqday laas caalada ciidankii u dhex jooga laba isqabanaya ma aha waxaanu leenahay ciidanku xeryahoogaa ku noqdeen waxaa kaloon soo dhaweynayaa go'aamadii beelweynta garxajis soo saareen waan soo dhaweynayaa annaguna haddaan beesha ayuub nahay cid nagu matashaa haba yaraatee ma jirto maalinteedana markay noqoto annagoo calanka cadsideenna oo beesha ayuuba ayaanu tegayna halkaa waad ogtihiinoo beesha ayuub xukuumadda male xisbina male nabadday leedahay anigoo ah gaaska guud ee beesha ayuub waxaan leeyahay xukuumadda ayaa la hadlaya sool nabadgelyaad ku baaqaysaan guryahoodiina waa dhex fadhidaan isma qabanaysa taas xeryihiinnii ku noqda xukuumadda waxaan leeyahay faraha kala baxdo oo xeryahoodii ha ku noqdaan ciidamadan saraakiisha guryahoodii cadcaddaa xeradooda markuu taga wadahadal baa imanaya waa la heshiinayaa markaa jiro gurigaagina waan fadhiya ila heshii xabad joojinadaad ku baaqdo dee miya isma qabanaysa dee muuse isagu ma laha dee dalka doorashii ku yimid doorashana uu kaga degaya maantana dadkuba wenceno uu iska tegiye meesha inaga duminina oo kuwana la ficiltaminaya askarta ahe askarta waxaanu leenahay meesha ha ka baxda askartu oo xeryahoodii ha ku noqoto dee kolka nabad la doonayo waxaa laga soo bilaabaa halka ay salka ku haysa nabadgelyada madax dhaqameedka ayaa gacanta ku han jiray weligeedba somalilan meel kastoo ribada madax dhaqameed baa loo diri jiray muuse waa ogtihiin inaanu madax dhaqameedka keer siinin tii yaraydee saqiirkaydeen xisbiga macaaridka sameeyey waa idinkii ogaa waa kii madax dhaqameed oo yidhi taga waxba ha qabanina sidaasaanan waxba idinka lahayn aanan waxna idin dheerayn waxaan leeyahay waa laydinku gefay waa gef baa idinku dhacay dhimashaa idinku dhacday waxaa waan idinka taxsiinanina idinkuna naga aqbala waxaan idiin sheegayaa kale
qaranka u sheegaya war dadka waxaan qabanaya in loola tegin nuux taanow ka soo saar ciidanka meesha xeryahoodii ku celi nabadna ku baaq iyo miiska wadahadalka sidoo kale maanta waxaynu u baahannahay nabadgelyo waxaynu u baahannahay wadajir iyo walaalo qacmaha haysta inaynu noqono xaal galo joogaanu idisiin waanu idinka tacsiyadeynana wax kastoo idin gaadhayba dhulbahante waan tacsiyadeynana garaad jaamac ismaaciila halkan waan ka tahaniyadaynayaa hawadaan u soo marinayaa salaan qiimeeyo qaayale ayaan kuu soo marinayaa suldaanka hadalkiisii markii dadku eegeen hadal cuntamo wuu noqon waaye annagu haddaanu ayuub nahay beesha ayuub nahay umaanaan dhammayn maanaan ogeyn sidaasaanaan annagu war iyo wacaal uga hayn oonaan u ogeyn